kudadaala nadaafada dad yahow tanteeniye dariiqyada magaalada indhuhu daawan bilixdooda iscilqaan dadkaygow aaday daawa ku ololaha nadaafadda ee degmada Burco ayaa saaka oo khamiisa laga fuliyay degmada Lixle. ololahan ballaaran waxaa hogaaminaya agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Burco, iyadoona ay ku wehelinayeen xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Lixle. howlgalkan ballaaran ee nadaafadeed intii lagu howlanaa waxaa lagu nadiifiyay goob ka mid ah goobaha ugu qashinka badan degmada Lixle. bulshoy door kastay tahay inteena weeye dad yahuudida qashinkoo dhan dariiqyada ku beergeeda hanadama lawaa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Axmed iyo gudoomiyaha degmada Lixle iyo sidoo kale madaxa nadaafadda ee degmada Burco ayaa bulshada u diray fariimo iyo digniimo kama dambaysa. anta oo ay bishu tahay 12 bishii tobnaad 2023 maalin khamiisa sida caadadeenoo ahayd waxaan ku jirnaa ololihii khamiislaha ahaa ee nadaafadda ee dawladda hoose ay ku nadiifinaysay magaalada Burco oo maanta aanu ka fulinayno degmada Lixle gaar ahaan xaafadda Salebaan Kulul aanu ka wadno halka oo aanu ka gurayno khashin ay dadku si khaldan u dhigeen. waxaan doonayaa halkan maanta inaan uga faa'iideysto inaan dadka u soo gudbiyo fariin wacyigelin ah. sida aan la wada socono waxaanu galnay waqti roobaad. xilligan oo kale marka roobabku bilaabmaan waxa yimaadaa in daadad ay socdaan. haddii khashin meel la dhigo daadkaas uu soo qaado waxay keentaa in xanuuno badan gudbiyaan. maadaama ay taasi jirto waxaanu u baahannahay xilligan taagan inaynu muujino taxadir badan. waxaanu u baahannahay dadku inaanay khashin geynin goobaha aan loogu talagelin ee qof waliba uu la sugo oo khashinkiisa uu geeyo goobtii loogu talagalay ama gaarigii uu saaro gaariga uu la sugo gaariga uu saaro ee qofna aanu halkan dhigin. fariinta labaad ee soo gudbinaya waxa weeyaan daadadku markay soo dhacaan ee roobabku da'aan dadow please khashinkiina ha raacinina daadka. arrintaas waa arrin ceeba, waa arrin soo noqnoqotay beryahan dambe inugu badan, waana ceeb. aynu arrintaana aad uga taxadirno. waxaanu wacyigelin halkan uga diraynaa bulshada degmada Burco xaafadan Lixle gaar ahaan Salebaan Kulul. waxaanu sheegaynaa in ay ka waantoobaan qashinkan ay isdulligayaan maadaama ay tahay roobab iyo daadad ay jiraan oo ay soo qaadayaan. maadaamay intaasoo hawlood dee ay birika maalin uu roobku da'ayo oo maantadan da'ayo dee waxa magaalada oo dhan bay sareynaysaa, magaaladii bay kor ka xigtaa. waxaan bulshada u sheegayaa inay qashinka ka waantoobaan, gaadiidka la sugaan. maalindhaaf wuu soo maraya gaadhigu. haddii aynaan dee isla shaqayn oo aynaan gacmaha isqabsan oo aynan qashinkii aad maalin walba nagu mashquulisaan hawlo kalena uma gudbi karno. waxaan u sheegayaa bulshada Burco insha Allah bismillaah kariim in ay si wacan wada shaqayno oo aad qashinkan xaafadba astul dhigaysaan aad ka waantoodaan. marka waxaan leeyahay dadweyne nala shaqeeya oo idinku isla shaqeeya oo nadaafadda ilaashada oo caafimaadka ilaaliya intuu qashinku idin jiro caafimaadku idin jira. bulshada sharafta leh waxaan ka codsanayaa ee degmada Burco ku nool inay ka waantoobaan qashinka ay ka soo qaadayaan goobahooda ganacsi iyo guryahooda ay keenayaan meelaha aan lagu talagelin sida wadooyinka iyo meelaha aan lagu talagelin ay dhigayaan. fadlan muwaadin iska ilaali oo ka taxadir inaad wada dhigto qashin iyo inaad meel aan lagu talagelin aad dhigto. la sug gaadhiga oo saar. intaa ciddii ka dhaga adeegta waxay ku mutaysanayaan ganaax iyo xadhig aanay qaadi karayn. ololaha nadaafadda ee degmada Burco ayaa isagu ah mid joogto ah kaasi oo khamiis kasta ay ka fuliso dowladda hoose ee degmada Burco degmooyinka kala duwan ee magaalada. istabiib dadkaygow qashinku daawo ma lahayne meelaha la daawaday bulshadu soo dalxiistaaye damirkana intaasay dadkuna kala horeeyaane waa iga dardaarane dad yahow qaata dabuubtayda meelaha la daawaday bulshadu soo dalxiistaaye
damirkana intaasay dadkuna kala horeeyaane waa iga